madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya oo is-afgarad hordhaca ka gaaray kulankii ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulamo saacado badan qaatay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku yeeshay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Kulamadaas oo ay ugu hadlayeen arrimaha la xiriira khilaafka doorashada ee Soomaaliya. Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed ayaa waxay dadaal ku bixiyeen in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ku qanciyaan inay ka soo qayb galaan kulanka weyn ee madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada oo lagu saxiixayo laguna dhameystirayo heshiiska doorashada Soomaaliya. Wararka kulanka laga helay ayaa sheegaya in madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed ay ku qanciyeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb galaan kulanka guud maalinta Talaadada ah si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka jira. Warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in la qanciyo xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo gudoomiyaha aqalka sare, taas oo keentay in kulanka madaxda dowlad goboleedyada ay ku biiraan midowga musharaxiinta. Maanta oo Axad ayaa waxaa la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay la kulmaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi si loo qanciyo. Waxaa kale oo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Roble. Doorashada Soomaaliya ayaa weli heshiis rasmi ah laga gaarin, waxaana beesha caalamka ay weli wadaan dadaalo ku aadan sidii ay isugu imaan lahaayeen saamileyda siyaasadeed ee dalka si loo aado doorasho Soomaaliya ay ku wada qanacsan tahay.